بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن أصحاب تقاليقة أكون سودو هذا يوتيوب كي شكري لبا كتاس مركلة فيديو عصب أياكو كل منا هذا جنال عصب تهاي فيديو أنا وياكي كوجوري وحكا عصنا إن جنال سبسكرايب على صارتو فيديو أي لايك جريسين أصحابتين علو ذاكتين وأشير جريسين وأنا كم هسنتين دا وشذا فيديو يا شيدا صدق الله كسل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. intaas kadib maanta waxaan wadaa sheeko cusub sheekadeena hordhac iyo ma jirto horaa ka galeena waa sheeko yar oo waalan gabar yar oo waxa ku jirta sheedaamad ah hadaba sheekadeena ayaan bilaabaneynaa sheekadeena waxay dhacday 2015 ayaa waxay ka dhacday wadanka Sacuudi Carabiya gaar ahaan magaalada Jidda ayay ka dhacday maalin maalmaha kamida jawiga iska degan baa maha dukaan kamida dukaamada waaweyn ee lagu iibiyo dahabka gaar ahaan dukaamada caanka ah oo shirkadaha waaweynka ay leeyihiin baa waxa soo hor istaagay gaari nooca ugu dambeeyay oo ah gaariyaasha dadka waaweynka leh ay qaataan waxa ka soo degatay gabar yar oo da'deeda lagu qiyaasay 22 ilaa 23 24 gabar aad u dhalinyaro laakiin ah malikatul jamaal aad u qurux badan gabar waxay aad gabar ma sha Allah aad u qurux badan ahayd xijaaban sidoo kale waxa la socota gabar kale oo shaqaale ahaan waxa baarkina boorsada u wada oo ayadana haysato jinsiyadaha wadanka Sacuudiyaan ma ahan laakiin wadamadan kale oo Carabta ahayd gaariga markuu soo istaagay gabadha albaabka laga furo ay soo degatay gabadhii waxay si toos u soo abaartay maxalkii lagu iibinayay dahabka dukaankii soo gashay waxa la hala soo dhawaaqay markii la soo dhaweeyay wixii dhahday waxaan ay heblaay la yiraahdaa hebel gabadhiisa ayaan ahay ninka ay sheeganayso marka ay dhahday sheekh hebel ay dhalay waa nin taajir isnacay oo magaalada dhinacanka ah oo la wada yaqaano bay sheegatay markay saas dhahday waa loo wada istaagay waxa la dhahay ahlan wa sahlan soo dhawow sidii markii hore loo soo dhaweeyay labajbaarkeeda la soo dhaweeyay dadkeedana u kaceen saasal ama arkino in la qaado wax yar ka dhinayd si caadi ah loo soo dhaweeyay ayadana aad uga faa'iideysatay wixii dhahday haye waxaan rabaa xaflada qabnaa oo mar dhow dhici rabto marka waxaan rabaa dahab dhaqanka noocaasa sid hebel bal hal soo bixiyo de gabadha hebel dhalay ninka caanka gabadhiisa oo lacagta agtiisa waxba ka ahayn batiishka ay kala mid tahay wixii dahab ay la soo hordhigay sidadka hebelkeen si u dheysay wixii markii aragtay siday ka dooratay waxay tir waxaan rabi lahaa dahab wax cusub oo aan hore la ila qaadanin baan rabi lahaa dahab noocaas meesha wuxuu yiri oo wiilkii ninka mudiirka ka ah macnaha qaybtaas ninka madaxda ka ah amarka joogo dadku adeega ka waxda ku joogo kamid yahay waxa dhahay waxaa jiro sad noo dalban oo imaanayo laakiin hadda xarunta ma yaalo laakiin maalmaha soo socdo oo imaanaa sadkaasi waana ku tusaa sawirkiisa hay'adda isoo dir sawirkiisa isoo dir kuwana kana ka qaatay waa idinkaasa waxaan rabaa intaan xafladda la gaarin ka hor in wax walba ee diyaar ay sii ahaadaan hay way halda Instagram-kooda ka qaaday lambarkeeda laga qaatay WhatsApp-ka lagu soo diray halda maalinta balanta markii la gaaray oo loo qabtay oo la maalin hebel u imaanaa dahabka maalintaas ay soo wactantay hay waxa la yiri diyaar way halda dahabkaaga sadkiya WhatsApp-ka loogu diray oo tirkan waaba ka rabay waa cajibiyay qiimaha dahabka ay qaadatay qiimihiisa wuxuu la ekaaday wuxuu noqday 5 milyan oo ah riyaalka wadanka Sacuudi Carabiya noqdo waa 5 milyan ya oo wuxuu noqday oo riyaalka wadanka Sacuudi meeqa waa lacag aqalka fooq waa bay noqotay waxay tiri okay waa soo diray tiri lacagta laakiin waxay tiri waxaan rabaa qof ii keeno in qof iigu soo dhibtay ninka wuxuu dhahamaya qof muu soo dhiibayno in adiga noo imaadid waayo oo adaabkaaga ay qaadatid markaas waxay tiri waa soo diray tiri lacagtii ay soo dirtay waxay u soo dirtay ninkii markii lacagta markaa dirtid message-ka soo harayo wax macluumaadka dahabka iibsatay nuuciisa wixii uu soo qortay waxay tiri waa saddex lacagta soo diray dhahday lacagta ma soo dirtay ninkii uu fiiriyay okay wuxuu dhahay diyaar waaye ninka marka cabaar suga lacagtii ma imaan way ku soo noqotay waxay tiri dahabka ii soo dhiiba maanta idin imaan kala coiffeur hadda jooga caawi dhacaysa xafladu marka ii soo dhiiba wuxuu dhahay raali igraal noqo dhahay lacagta waa u jeedaa horta sawirka ii soo dirtay waa arkaa laakiin wuxuu dhahay igraal noqo lacagta wali ma hayo maalintaasna waxay ahayd maalin ciida adxa ciid weyneeda ee koo ahayd marka carada waxay ahayd
maxaa la dhahaye waxaa lagu jiray micnaha fasaxyaa lagu kala jiraa marka wuxuu dhahay maalmaha fasaxyada lacagtu way soo daada oo isla markii lacagta lama helayo dhahay marka waa ina akiidiyaa lacagtan lacag yar maahan 5 milyan waaye ina akiidiyo waayo gabadha way waxna qadamiya say ugu dhigi kartaa wariya ma taqaan meesha ka soo hadlatir anoo hebel gabadhiisa say waxa sii dhigi kartaa lacagta waa ku soo diray 5 milyan aan ku soo diray khalaas hadaa waxay qof noocaas ah tahay bisit ee cancel garay lacagteedan ii soo xili خلاص نينك وحش داي مركا 5 مليون العير maahan moqda hadana dadka xafiisyada laantaas qof kasta laanta madaxda ka markuu gado dahab in saacadadiisa ay tahay u gado half kuleeyahay Allah nacam qayb kuleeyahay ninka wuxuu isdhaay marka nacam boqolkiiba waxa laga siina ninka wuxuu isdhaay marka oh my god intaan lacag ma isdhaafin kartaa oo isdhahay de lacag badan ka bixayso ma wuxuu dhahay okay raal ma ku dhahay ma lahan waa arka horta message kan musaxina waa adii soo dirtay lacagtuna maalmaha iidaha iyo fasax kasta markasta lagu jiro saas nooga soo daahaysa laakiin hadda dib ma lahan bishardi laakiin adiga soo doonada dad ku xita aniga ma soo doonaa laakiin waxaan ku soo dirsanaa tiro nin shaqaalaha kamida oo nin shaqaalaha daabka lumay wax tiro nin Sacuudiya waaye saa ii keenay tirtaabka adiga ka walwala aw laakiin ii soo dhiib hay waa raan noqon wuxuu isdhahay de waa qoftaas ninkaas hebel u dhalay uu iska aaminay wuxuu isdhahay u dhiib daabka waxay ka dibninay wacday ninkii waxay orday kan dahabkaas meeshaas tag maanta mashquul ah aniga coiffeur hada jooga caawa xaflad qabaa de qof kale oo aan aaminana waa aan garan waayo oo adiga ahayn adiga ku aaminsanahay ee walaalo faqda marsi dahab iga soo qaad ninki xataa waxay tiro ku siinaa lacag taksiga waa ku siinaa maya lacag taksina kaamara adiga i amra bas ii sheeg meesha taale meel heblaayo waayda wuu haadan wuu tagay dahabkii soo qaad dahabka markuu meesha joogo tagay wuxuu dhahay dahabkaagu waa haya ma heesaha hay coiffeur hebel igu keen hay waay wiilkii soo orday xarunta markuu soo imaaday dahabkii lagu wareejiyay wuxuu dhahay gabadhaasaan hebel baan ka socdaa ma ka socotaa oo diyaar ah la soo dhawo asagina sidoo kale loo qaaday dahabkii loo soo qabtay waa lagu wareejiyay dahabkii markii lagu wareejiyay gabadha la soo wacay waxa la dahabkaaga waa kasninka loo soo dhiibay haywaaninkii uu soo wacay wuxuu dahabkii waa haya ma heesaha hay waay tiri igu keen coiffeur kaasaan joogay hay waayo dhadhay uu soo haada ninkii waa uu keenay coifeurkii marka ayadoo coifeurkii iridiisa taagan buu u dhiibay dahabka coifeurkii iridiisa ma taagnayn baabuur la socotay baabuurka ka soo digatay dahabkii ka soo qaadatay waxay tirahay aad u mahadsantaa wixii la taagneed way ka tagtay saas markay ahayd ninkii marka dahabka laga soo gadanayay xogaa walwala iska haystay maalinta koowaad xaaladda caadi maalintii labaad maalintii saddexaad maalintii afraad jawiga caadiga kusoo laabtay maaha way soo dhamaatay ciidda wax walbana sidooda kusoo laabteen markaas lacagtii male maba soo dhicinba uu baxay bangigu tagay wuxuu dhahay maalintaas saasaasa marka ii fiirshay lacagtaas waxaa lahay maya la maalintaas lacag ma soo dhicin alla lacag ma soo dhicinaa war lacagta wuxuu dhahay si fiican u fiiriya 5 milyan waa lacagtan lacag yar maahan maya alla kaamaheena la riyaal kaamaheena waa kan dha message la fiiriyo message hadii la fiiriyay waa sawir la hagaajiyay oo de shirkadu la heedo laakiin la hagaajiyay ada sida message ka markino Soomaaliya message saas amal wala soo qalda taaba loo soo diray ninka message wuxuu noqday sida markino Soomaaliya waa aragtay ma message EFC da qofka lacag ku diray message been dad inta loo diray lacag laga qaadan jiray lacag soo ka qaldantay isoo celis dhahay oo kale message waa message feega oo la soo dejiyo la hagaajiyay Photoshop lagu hagaajiyay waay waxaa la yiri waxaan wax ibir waay wiilkii shoog baa ku dhacay dakhaladu sameeyay lacag inta Soomaaliyeena asoon bahubin seen sudahab aad u dhiibtaa la المهم نينكي مركو انت بنكي تجي لعقتي وسواي والله لعقتس وفالسو نينكي ودنها بقوي قاربة وحودها ور لعقت سفي عنو أكيد وحالي وانا كاخبنا وحنا وصور لغوصة دروايا الله أساس ميا ودها وقبل انستغرام كذا بسانها محل تاركة بابور كذا حتى عمهايو المهم ركي انست وحبل لقواي انستغرام كذا دي اللي اجد واحد لقطة بقولي كرمنا واتساب كان على صور وتواكن ولا واتساب كله لكن تلفك ودنسين هو maalintii lacagta aan waayeen isku day inaan waco waan heli waayo dhahan hay waay hal gabadhii meel loo raadiyay malahan lacagta maqana waa 5 milyan oo riyaal Sacuudiya waa lacag yar oo iska mala yacni maahan waxa la sameeyay waxa la yiraahdaa xal mal wuxuu dhaw waxaan hayaa taarikada gaarigii qaaday ninkii iga qaaday waa u dhiibay taarikadiisa haysta taarikada ma haysta keen Allah ninkii taarikadiisu keenay waa ninkii waa la aqoonsaday daf waa la soo qabtay waxa la yiraahdaa sababta dambiga ugu lagu yeertay maxay tahay wax dambiga sheegaysan maxay toodaa waxa la lacagtaas war wuxuu dhahay dahabkaas wuxuu dhahay
ninkan asaga naftirkiisa la khiyaamay ninkan ay u soo dirsatay waa nin ay mar isbarteen waxay isugu sheegtay inay tahay gabar noocaas odagaas hebel u dhalay oo hantile ninkan riyo ku noolaaba wuxuu isdhahay gabadhan saan u quruxda badan leh oo ninkaas taajirka oo leh amaadba maalinba aa heshaa adiga naftirkaaga afurka faqriga tuurtaa oo isdhahay asaga xataa waa loo beenguuri marka maalintaasna wada lasii maraa laga dhigtay adeegana lagu soo fulish aab lagu soo fushtaba marka wuxuu dhahay gabadha ani saasay dhahdo waa isnaqiinay marmaray baabuurka igaraaci jirtay saasayna igu dhahday marka ana inaa arkaa muhiimadda iga muhiimsaneed u dhah saa waxaa la yiri daacadaaba hedaa allah nin intaasoo malyan oo dahaba intuu qaaday soo sarrifay amiinaaba taala adiga nin fiicanaaba heda aamin ahe wuu qaldanaa marka ninkan wuxuu dhahay aniga waxba shaqaa kumili mana aqoon gabadhan laakiin gabadha aniga xoogaa raja iga jirtuu dhahay marka wuxuu dhahay xataa waxay dhahduura lacagta baaburaaca waa ku siinaa anaa diiduu dhahay because waxaan is dhahay aragtideeda muhiim anay aheed u dhahay ninkan marka waa la ogaaday inuusan wax ku lahayn oo asaga naftirkiisa uu qaldanaaba uusan rigs iska biibiibay waa la ogaaday waa la iska sii daayay meel kale loo raaca ma lahan khalaas askartu marka ayaga kaa cilmi badan mogtahay askartu waxay sameeyeen lambarka waxay baareen simikaarka min xataa waxay soo saareen taleefanka qofkii ugu horreeyay oo isticmaala jihaaska taleefanka naftirkiisa adi shirkadda taleefanada markii loo tago waa isla maalintii ilaan waxaa laisleeyahay qofta ha laga gaaro dahabka intaysan isticmaalin ama aysan gadanin ama aysan wadanka ka bixin waxna waa la waayay maalintii labaad la marooyaa marka shirkadda tageen taleefankiia waxaa lasoo helay taleefanka qofkii ugu horreeyay ee soo gatay oo isticmaalay oo simikaar gashtay baa lasoo helay taleefanka simikaarka ayaa waa taleefankii qofkii ugu horreeyay isticmaalay wuxuu noqday nin yemani ah oo ku nool xaafadaha maarkin dadka isku raranta camal oo ku taalo magaalada maka ku taalo la ogaaday askarta way baxeen way u tageen ninkii u tageen hayaa allah salaamu calaykum wacalaykum salaam hay waxaa la yiri taleefanka noocaasa oo xilligaas gadatay sheegaale meel ku sheegaale wuxuu dhahay taleefankaas ani waa lahaan jiray laakiin wax yar markaan isticmaalaba gabadhaydan siiyo asaa soo gatay magaciisa lagu soo gaday asaa wuxuu qofkii ugu horreeyay isticmaalay halkaas ka tixraaceen simikaarkan waa simikaar iska dee qofkan dadkan soo kataan la iska tuurayeen waa magaceeda ku qoran magaca waxaa ku qoran gabadha magaceeda ku qoran laakiin qaab qaldan ay u isticmaalaysa ma aqaanay sharci wax ma dhiibin miya markii la soo ogaaday ninkii wuxuu dhahay gabadhaydan sii gabadhaada awaale gabadheeda wuxuu dhahay hooyadeedan kala tagnay marka jidday joogtaa jidday degan yihiin ayada iyo hooyadeed maxaa dhacay wax dhiba ma jiraan la dhahay iyadan rabnay haye macluumaadkoodana sii adrooskooda ma aqaano dha aniga laakiin hebel la dhahaa sawiradoodii laga helay odaga gabadhiisa sawirkeeda gabadheeda sawirkeeda waa kanu dha ninkii ala tusay ayada naftirkeeda waa u dha gabadhii hooyadeed iyo sawirkeeda hooyadii sawirkeeda iyo gabadhii sawirkeeda laga soo helay aabihii waa taleefanka hooyadii gudansan yahay asagana way soo baxeen askarta jidda imaadeen jidda hadday imaadeen dee meel loo raadiyay ma lahan waxaa la ayagana waxay degan yihiin xaafadaha saas camal waa xaafadaha shacbiga la dhahay oo shacbiga la dhaho ay degan yihiin xaafadaas isku raranka dadka badan ay ku dhudhuntaan waa qof aadan aqoon ciwaankiisii mid ka raadin karta way raadsheen way waayeen marka dambe fikrad waxay keeneen in suuqyaasha dahabka oo dhan askartu ay iskala qaybiyaan horta meel walba garoonka inayna ka bixin inayna dhulka marin kulli sawiradeeda la dhigay haddana askartu waxay dhaheen suuqa dahabka gaarkaa laga hayo askartu way isqaybiyeen suuqyaasha dahabka oo dhan oo magaaladaas ku yaala ilaa iyo maka waa la isqaybiyey askaraa la wada dhigay gabadhaas in halkaas askarta ay ka waardiyeeyaan waana maalintii labaad la maraya waxay isdhahen askarta ama dahabkii iyo waxii kala dhumaan المهم أسكرت ساعة راقب وجهه وحير كبعدي بصباح دي صدحات دب ما بتشري بكأنه ما أنا سن بتوجع هين بو وعوتنا بجبردي إيه هو ده ولا بسن وصل السعودان سيقول لبسين أو موددت كا الدنيا وتاجر سن عمل لبس كوده إياه شح كمقطع باي سوق لين باي بورسوين كوده سوق لين سوق ده كدكان كأكيد سدين ما هي أريا كلا بير سوق سوق لين وعربي مركز دكان إن كيب سدان دهبك dukaamada askarta sawiradeeda way haayaan way dhigeen meel walba dahab lagu iibiyo waa la siiyey qishka gabadhan hooyada markay soo galaan dadkii arkeen askartii hoos laga wacay jag waa loo imaaday dhab aa la siiyey waa la qabtay markii la qabtay waxaa la haye way qiratay gabadha waxay tiri qaabkaas ku shaqaystay marka horena waxaa uga taalay nacam dhowr duka laakiin marka hore wax yar ay qaadanaysa tookada laakiin adduunkii way jabsatay xoolo dhan ay qaadatay ma haro بس قبل ويقرتي هو إذا واحد أنا وحبة كموجين مع
كوسو أنا سي هذا اللي بيصير ولا سعوتت ما هم قبل هذا وحيت أنا عايز كده يترينا محلها أن كواري وين قديدي هذا نفتر كده وحنا بدكان كي علينا هذه هبرت لكن واحد مسؤول عن الله المهم دارك ولا قاعدة السوي وحكم مقنعين والسيري سيا اللي يسوي عليه قبل ولا قبتي محكمة على صاري محكمة دنبيه رأي وحي على سوق دردري لكن هالسنة بسال حكومة هالسنة هايدين وحال حكومة أيضا وحال حكومة هايدين كونتن شمبلات وحرقة هايدين لو حكومة لو من هالسنة لو حكومة من الشمبلات لو حكومة قبل أمريكا هالسنة لو حكومة سوق صار بين كين أساس الذهب كيس اللي هو سوريجي سوق كلا جرايد ده ودن كسوحي بالماس ودن قرايين قبل نك بركو شيء ودن المط قبل عاد قروح بدنيات قبل دي قروح ذي كوح ضيبة على 5 مليون وحال lagu qoray oo riyaal oo wadanka Sacuudiga ku xaday quruxdeeda ku xaday 5 riyaal because gabadhan qor ma wadan xal laha bistoolad ma wadan waxba ma wadan laakiin aragtideedaas hore baaba qofkii arkaabo uu iska siiyay uu iska aaminay gabar saana qof kasta oo isdhaado gadaal ama kala soo xiriir kula soo sameeysa marka waxa la gabadha quruxdeeda ku xaday dukaanka dahabka ee inta milyan oo lacag ku xaday baa jaraa'idada xitaa lagu soo qoray ka waran gabadhaas xarifad زائد صوميسن هين توغي روحي إيه قطرة لكن أخيرا كي ويفشل أنت وأنا لسقطتي إلهي حولته نمع سيو إلهي نوما بريرسيو إنه واحد إسلام أدعنه في ذي أنا ما تسوق وجهها أنت في ذي لما تكون من دونه وحد يكون دافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا نكعصنا إن في ذيها إيش شركة رسانسية وهلو أصحاب فربضان ويدينك عملها وأنا كم سنتين داوشة في ذي شيء